qadarkii ilaahay baa dhacay caruurtii miinadu ku qaraxday ku dhimatay oo laba ahayd aabahood halka joogay adeerkoodba waxay soo gaarsiisay taakulo dhan $20,000 oo madaxweynuhu soo diray waan ka gudoonay gudoomiyaha gobolka waxayna soo gaarsiiyeen dawladdu lacag dhan deeq dhan $20,000 waan ka mahadnaqaynaa barasaabka gobolka Awdal Mudane Cabdirashiid Xasan Mataan ayaa xafiiskiisa waxa uu ku gudoonsiiyay $20,000 qoyskii dhawaan miinadu kula qaraxday degmada Quljeeda gobolka Awdal waxaana halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdirashiid Xasan Mataan isagoona faahfaahin kooban ka bixiyay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah horta qadarkii ilaahay baa dhacay caruurtii miinadu ku qaraxday ku dhimatay oo laba ahayd aabahood halka joogay adeerkoodba iyo gudoomiyihii degmada Quljeed iyo ehelkii kaleba dhibta horta dhacday horena uga taxsiinay iminkana ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu ilaahay ubadkaas shafeec uga dhigo bedel khayr qabana Allah siiyo waalidkooda hooyadood iyo laba caruur oo kale oo dhaawacmeen ilaahay inuu u fududeeyo dhaawacyadooda ilaahay dhaawaco hore bogsada ka dhigo isbitaalkana lagu tagana waan booqanay waxaan halkan ka cadeynayaa in ay xukuumad ahaan taageero iyo iskarabtaag u muujisay saakana waxa uu na soo gaarsiiyay taliyaha ciidanka asluubta Jeneraal Libaax taakuladii xukuumaddu ay u soo dhiibtay oo ahayd $20,000 oo lagu taakulaynayo qoyska dhibta ku dhacday awalan ilaahay baa keenay qadarkee waa lagu sabraya qadarka qoyskiina waa kaas ilaahayna waxaan u baryaynaa in ilaahay caafimaad taam degdeg siiyo kana kabo dhibtii ku dhacday xukuumaddana waxaan ka mahad celinaynaa mar kale anagoo ka mid ah in taakuladaas ay noo suurta gashay ilaahayna waxaan uga weydiinaynaa in xukuumaddeena ilaahay xukuumad jirta inooga dhigo oo taakulo ka badan intaa iyo dalka wuxuu inaga tabayaba ilaahay kuwa uu u aqbalo ee suurtageliya allah inaga dhigo guud ahaana buun colaadeed baa afuufan ilaahay colaadda inaga damiyo ilaahayna roobka haynoo shubo abaarahana allah inaga soo gaadho dadkeena ilaahay maxaabi dhexdooda ha dhigo midnima laynaga rabaa ee Somaliland waa lagu soo duulay ilaahay midnimadeena ha adkeeyo aad baan idin salaamayaa waad mahadsantihiin insha Allah taala ilaahayna dhankooga waxa ka dareen celiyay isla markaana ka mahad celiyay gudoomiyaha degmada Quljeed iyo sidoo kale qoyska ay dhibaatadani ku dhacday ee ka soo jeeda degmada Quljeed ee gobolka Awdal waxaana hadaladoodu u dhignaayeen sidan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam halkan maanta aan joognay waa xafiiska gudoomiyaha gobolka Boorama waxaan u joognay waa qoyskii hay soo gaadhay dhibaatadu ee qaraxii Quljeed ka dhacay muxuu ahaa bamka ahaa xaafadii ku qarxay labadii caruurna hayna dhimatay saddexna ay taala dhakhtarka taakuladii hay ugu tala gashay dawladdu oo haw qayb ka qaatay gudoomiyaha gobolka iyo annakubahan codsigiihan u diray xukuumadda hay ka soo jawaabtay xukuumadda wadajir iyo waxqabad muxuu ahaa oo lagu yaqaano cid kastoo dhibaato ku dhacdo oo degan Soomaaliland inay taakulo soo gaarsiiso waxay soo gaarsiisay taakulo dhan $20,000 oo madaxweynuhu soo diray waan ka gudoonay gudoomiyaha gobolka muxuu ahaa anigu gudoomiyaha degmada Quljeed Maxamed Doon Cismaan iyo Mahad Daahir Tukaale oo ninka dhibaato soo gaadhay iyo gudoomiyaha gobolka waan wada joognaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhibta ilaahay baa keenay gudoomiyaha degmada Quljeed iyo gudoomiyaha gobolka ee barasaabka Boorama iyo xukuumaddaba waan u mahadnaqaynaa qoyska dhibaatada ku dhacday waxayna soo gaarsiiyeen dawladdu lacag dhan deeq dhan $20,000 waan ka mahadnaqaynaa dawladda waan u mahadnaqaynaa gudoomiyaashana waan u mahadnaqaynaa waxana walaalkay u naxsan yahay aniga ka jawaabay u mahadnaqaya warbaahinta Cishqi TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal